السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلي عشر كان امتحانات لها كسب صراحة مبارسة. عشر كان وحنا هذا الدونا سيد الوقرة هم راح نحليه كان introduction كان. مركز توعية مبارسة السنة أما الرجل الوقرة research ومهم وعلى المعلومات اللي هلا introduction أما مربع. مربع وماشى أخذتها وهو الرئيس إيش يسوق قبل يسوق. marka uu hordhaca qofku uu akhristaha uu ka helo ayaa waxay suurtagal u noqotaa inuu u gudbo qaybta gadaal ee cilmi baarista. Intaas waxaa dheer ardayda markii ay wax qoraan cilmi baarista ama researchka ay u gudbiyaan committee ama macallimiinta ama supervisorska thesis-ka ama buuggii qalinjebinta waxa ugu horeeya ay ka akhriyaan waa introduction-ka. haddii markii introduction-ka uu ama hordhaca uu ka helo supervisorka ama macallinka waxay suurtagal u noqotaa inuu qaybihii kale u gudbo asaga oo ka fiirinayo haddii uusan qaladaad ku jirin ama ay u baahnaato inuu gudaha usii galo. Intaas waxaa dheer marka la rabo in la akhriyo mardhaca qofka waxaa looga baahan yahay wax qorayo in uu u qoro si kooban oo ay nidaamsan oo ay ka muuqato structure-ka ama qaab dhismeedka cilmi baarista qaybaheeda kala duwan. marka uu qofka uu ka helo structure-ka ama introduction-ka uu si fiican u soo jiito ayaa qaybaha kale u gudbaysaa. ma jirto xad la isku raacsan yahay oo loo baahan yahay in cilmi baarista ahaato. waxay noqon kartaa 2 page, waxay noqon kartaa 1 page. haddaba waxaa looga baahan yahay marka ardayga qoraya cilmi baarista in introduction-ka uu u qoro si nidaam ah oo qofka akhristaha ah aad u soo jiidan karo. waxaa looga baahan yahay introduction-ka in laga arko hypothesis-ka maxay sii saadaalinaysaa cilmi baarista. waxaa kaloo loo baahan yahay in laga arko problems-ka jiro oo macnaha uu rabo cilmi baaraha inuu wax ka qabto. in laga arko hadafka aad leedahay. marka waa meel aad muhiim uga ah marka la sameeyo research-ka. marka qaarkood waxaa jiro in dadka ku xidhan cilmi baarista ay yidhaahdaan introduction-ka dib ayaan ku qoraynaa ayagoo ula jeedo in aysan ka tegin ama aysan iloobin qaybo ka mid ah muhiimadda ay leedahay cilmi baarista. haddaba ardayga qoraya buugga researchka cilmi baarista waxaa looga baahan yahay introduction-ka ama hordhaca inuu u qoro si kooban oo nidaamsan oo aan weliba lahayn qaladaad. waa inuu iska ilaaliyaa qaladaadka xagga ka imaan kara xagga luqadda. waa inuu tusaa akhristaha in ay tahay researchkan mid la ambaqaado inuu qalanto. waa in inta hordhaca introduction-ka ama hordhaca laga arkaa waxay loo yaqaan research gap. qofka meesha uu rabo in uu daboolo. guud ahaan marka cashirka waxa uu ku saabsan yahay sidee baad u qori kartaa hordhac qiimo leh soo jiito akhristaha. ogow akhristaha waa macaamiishaada koowaad ee researchka. haddii marka hordhacaagu uu qaldan yahay suurtagalnimada uu qofka kugu aada qaybaha kale aad ayay u yartahay. sidaas aawadeed waxaa looga baahan yahay arday kasta oo qoraya cilmi baarista in uu iska hubiyo hordhac tayo leh oo aad u habaysantahay inaad qorto. haddii aad ku guuldaraysato inaad hordhaca ku qaldanaado qaybta dambe researchkaaga way qaldanaysaa. waxaa raba marka qodobada ugu muhiimsan ay tahay iska hubi hordhaca qofku wuxuu tusaa structure-ka qaabkee ay researchka qaybaheeda kala duwanaysaa. ku muuji hypothesis-ka maxaa saadaalinaysaa. ku muuji problem-ka jiro oo aad rabto inaad cilmi baaris ku qorto. ku muuji area-da ama waddanka ama goobaha aad wax ku qorayso. ku muuji methodology-ga kale waxyaabaha aad isticmaalayso si qofka uu ogaado waxa aad raadinayso, meesha aad ka raadinayso iyo sida aad u raadinayso iyo qaabka aad rabto in ay wax u waxaan. soo marka hordhac wuxuu aad xil u leeyahay waxa la yaqaano abstract-ga oo ay isqaadan karaan oo macnaha iska soo agdhawaan karaan. gunti iyo gabagabadii waxaan cashirkan ugu talagalnay in aan la yaraysanin qorista hordhaca, in aanan laga dhiganin wax yar oo iska kooban. waa in aad awooddaada iyo caqligaaga iyo kartidaada isugu geyso. waa meesha keliya ee aad tusi karto qofka akhristaha inay u qalanto researchka in la ambaqaado. intaas ayuu ku kooban yahay cashirkeenii lixaad ku saabsanaa cilmi baarista. waa anigoo ah Dr. Shaafi Shariif iyo saaxiibkii arrimahan oo inoo suurtageliyey in videoga aan duubo. tani dib dambe intaan u kulmi doona cashir kale. hada wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.